imika waxa isweydiinayaan culumada adduunka ee corona virus daba socota sida journal Faransiisku uu qoray marxaladuu socdaa cudurkan dalmadii uu soo dhaafay wuxuu socdaa marxaladda labaad oo ah koboc iyo ballad weli muu gaadhay marxaladda biseelka oo dadka ridqi doon annaguna waxaan u noolahay inuu na ridqin haddaan nahay Somaliland joogno Puntland joogno Ethiopia aan joogno Djibouti aan joogno waxaan u noolahay inuu na ridqi doonin baan moodaynaa laakiin imika wuxuu socdaa marxaladdii labaad la socda journalka Faransiisku oo maaragtay haga politiga wax ka qora waxa uu shaaca ka qaaday in ay noqonaysa qaaradda Afrika dhageysta Soomaaliya reer Djibouti qaaradda Afrika inay noqonayso meesha uu ka dhigan doono meesha uu ridqi doono boqol gool laba sabab daraaddood sababta koowaad waxa weeyaan wacyi caafimaad ma yaalo Afrika dadku male maskax iyo dareen iyo baraarug caafimaad arinta labaad waxa dunsan burbursan dinsan waxa loo yaqaano albiniya tahtiya sahiha caafimaadka dhismihiisa hoos oo dhan su'aal baan weydiinaa dhakhtarada Djibouti oo dhan imsa sariir baa taala hadda ka soo qaadna inay taalo kun sariir ka soo qaad soo dhanteeba kun afshat waxa dhaba ama laba kun oo sariir ba ka soo qaad haday taalo ilaahay ma qadaro ilaahay ka qabto ummadda masaakiinta hadduu cudurkaasi haleelo مثلا 7 kun oo qof ama 5 kun oo qof hagee la saxiixay dadkaas imise waxa yaala gargaara oo naqaska gargaara dhakhtarada Djibouti hadduu cudurkaasi 300 ama 400 oo qof u haleelo oo u baahda naqas halkee naqaska loo keenaya Somaliland waa la mid Puntland waa la mid Muqdisho waa la mid ay makaan aan deganahay waa la mid problemkaasi waa problem culus Afrika saasa loogu cabsoonaya waa diraaso Faransiis bay ku qoran tahay Ingiriis bay lagu turjumaya Soomaali bay lagu turjumaya Carabi lagu turjumaya kulla luqad bay lagu turjumaya ninkaasi wuxuu yiri Afrika waa meesha ugu daran ee uu burburin doono bilaha soo socda wuxuu socdaa cudurkani kriiskani amba crisis-kani wuxuu socdaa marxaladii labaad ma marxaladii koobaad marxalad thaniya uu dhashay uu kobcaya una fidaya ma aha marxaladii saddexaad nudji ma gaarin nudjiga uu gaari doona walidaalika maraykanka diraasaad joogta ah la wadaa New York waxay ku jirtaa taxta al-azma taxta tawari emergency baa laga leeyahay waxa loo yeeray markabkii nuclear-ka sida ee badda joogay si sariiro loo dul dhigo oo dadka loo geeyo wuxuu dalbaday duqa magaalada New York inay soo gurmadaan gobolada kale ee Mareykanku waxa ay shaaca ka qaaday dawladda Turkigu inay u gurmatay Isbaaniya iyo Talyaani waxayna shaaca ka qaadeen wadana fara badan oo Afrika afka la qarsanaya say Djibouti tira badan u qarinayso bay masaariduna tira inta ka laba ay u qarinaysaa aqliga Afrika waa ka waan sheegi doonaa siyaasadaha dadka qaarkood ay kula dhaqmayaan mashkaladan ikhwani fillah marka laga hadlayo azmada nooceega waa taas taabiyadeeda maraaxisheeda jarooyinkeega waa taa waxaan ku jirnaa marxaladii labaad waxaan dhawaa dhalataa dhalmadii uu soo dhaafay corona laba waxaan oranay uu كوبا ونا بلادها النمو والاتساع تيبا كجرنا لصدحات وي بسلاطة لباتدو وي بسلاطة مركي بسلاطة ومركي مالكس تبا قشو اي دادك الدميسو قاربا اورانا بني ادك بوغان تلقى قرية 100 مليون وقف بعد من دوت قاربا ما يقرية 1 مليار وقف بعد من دوت ايك حقائق ذا وإنا لسو عنه أنكو هدان صومالي دور دسوغي معانا هاي صوت مليون بانها صدق كنا مري ماسك قوسناي ما بحي حمر برس ده سعودايو هرجيسا ده سعودايو ما محاس عنفر اوردر اوغي ددك عنفرت ولا لايا يمسقف باناي شده 7 مليون 10 مليون 6 مليون ماسك قوسناي ما اسنعني لا يا اخواني في الله وداتنا هدغيسين اني قال ما اساس السلام ويسردكدو جنة جليسين waxa hadhigeysina ka baxsaday min al-asad sida libaha uga baxsaday cudurada nabi maxamed baa diiday inuu salaamo alayhi salaam min cudur كما السلام يوكيلي أنا كان وحنا قال لي وإذا ذكر السلامة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقتلون الناس ذلك ما دليس إخواني في الله مركا نتجيبوا قالي دونا وحال اسكو إيمانا يا شرر على المساجد بس كسو حدينا وبقول طبنا يكون وقف سيديات كسو وقف اسكو إيمانا وكخليمة الدنيا ودن اجتماع بربحنا ما هذا أيها الإخوة ما هكذا تورد الإبل سيدا قيلوا لو مجروا أين العقل أو عقله أين الفقه أو فقهه
أين الدين أو دينتي أين العلم أو علمي أين الطب أو دكتور نمدي أين المقاصد الشريعة أو تردي شريعة جدويك مقاصد نفط حفظ النفس أو نفط على إلالية عرض على إلالية مالك على إلالية مستقبلك أمتنا على إلالية كل ذلك أين أيها الإخوة مركا أريتاسي مرحلة دا صدحات بانقالنا ندجي وصوصعتا أفريكا والدقيا أنا كنا أفريكا كنا الله هل الدقيش أريتاسي أوكي علماء waxay ka hadlaan wax loo yaqaan anwaa'ul azma marka laga hadlay catastrophe corona ka qaado markuu dhacay noocyuu leeyahay crisis kastoo dhaca crisis kastoo dhaca catastrophe kastoo dhaca kaarisa kastoo dhacda dhibaato kastoo dhacda waxay leedahay noocyo koow waxa laga eegaa halka ballarka shumuulka intay gaadhay ma jana qalba mise waa qayb yar u gaadhay no maanta cudurkani corona waa maxay waa jana qalba kuma dhacaun faqiirita kuma dhacaun aqniyada kuma dhacaun duqaha kuma dhacaun dhalinyarada kuma dhacaun ragga kuma dhacaun haweenka kuma dhacaun dowladaha caalamka saddexaad kuma dhacaun dowladaha dhargi wuxuu ku dhacaa kull albashar kaafir muslim male waa janaqal marka kriisku markuu janaqal yahay see loo daweeyaa waan sheegaynaa laba waxaa laga eegaa min xays alcumq guntiisu intay gaadhsan tahay ma arrin yaroo basiita sadxiya ah oo na soo ziyaarata mise waa arrin gundheer arrinta waa arrin gundheer waa arrin wareerisay caalamka oo dhan bal idaacad fur laa tastamic minha ay khabar way istaagtay qadiyadii falastiin way istaagtay qadiyadii ciraaq way istaagtay qadiyadii suuriya way istaagtay qadiyadii libiya way istaagtay way socdaan laakiin way istaagtay qadiyadii maaragtay waxoo dhan maxaa laga sheeg waa corona warkaad furtid ingiliishi faranji talyaani spanish carabi soomaali BBC VO جزيرة كل الأخبار waxay ka sheeganaysaa CNN maxay ka hadlayaan corona virus bay ka hadlayaan dowladihii oo dhan waxay dul fadhiyaan corona virus waxaa loo bedelay maamuladii adduunka oo dhan cumqi inay leedahay dowlada emergency waxa emergency degdeg shirbah lagu jiraa degdega habeen iyo dharar dowladii way shaqeynayaan arrinta saddexaad waxaa laga hadlaa min xaysi tawassuc caalamiyan ma cudur lookala ما عذر ما حويان قبل با مسوا عذر عالمية تاني وقلت من حيث التأثير ما ماتيريال أبو بابينا يا مسوا بابينا يا بشريا والله ما ودي لي من حيث التكرار والوقوع ما عذر صورنا قلنا قن كراه مسوا عذر مر ونعي ونلافيا إلهي بقرني تبارك وتعالى مركا إخواني في الله وحاجرة ومضوه مركا فكريان وحقوا فكران cudurka sidee looga hortagaa ee kama fikiraan cudurka sidee looga baxsadaa waxaa jira siyaasad la yiraahdo tatwiiq al-azma crisiskan azmadan waa in la xidho saadaradeed xuduudaha la xidhaa azmada waa meel baa lagu ootaa azmada crisiska dhibaatada catastrophe meel baa lagu ootaa meesha lagu ootay baa loo diidaa inay dhaafto soo jaynuhu sameeyay inkastoo ummadaha ka qariyay ilaa imkana mid kale ku soo noqon in laga cabsanayo laakiin haddana uu dadaal buu sameeyay tatwiiq al-azma oo haan buu xidhay marka tatwiiq baa waa inaad xidhatid azmada mid kale jirta siyaasad kale jirta waxa dhada ihtiwaa al-azma iyada ma xidhanaysid ee azmada inta aad fahantid baad soo jiidanaysaa si aad uga saartid nolosha uga yeedid iyada waa arrinta isticmaal arrinta saddexaad waxayaan tajannub al-irtijaal fi al-mu'alaja waxaa laga fogaadaa waxa loo yaqaano siday ila tahay baan sameynaa maaha waa sida imika Djibouti ay sameynayso siday ila tahay ciidankii maxaa ugu talagasheen ciidanka dariiqa jooga markii kaadi qabato dariiqu tagaya oo tilajinaya amba geed boos fadhiisanaya oo sinrada dhigaya wax la dabista ma jiro biyo ma haysto maartay waraaqado maartay iskaga biyo ma haysto yani waa mashaakil cuntada ilaahay baa garanay waxay cunayaan ciidanku dadaal bay ku jiraan sida dadka qaar sheegayaan anu dadaal ma aqaan waxaan u aqaanaa dadaalka noocaas waxaan u aqaanaa waa ciidan la leeyahay markaasi waa problem ikhwani billah waxa weeyaan tajannub al-irtijaal walidalika waxay dhahdaan culimadu sida imika Mareykanku wado dadaal waxa la saaray wax ka badan 30 fariiq 30 kooxood marka koox leeyahay maxay tahay 30 kooxood oo ciidankii ku jiraan oo ragii security national ku jiraan national security ay ku jiraan dhakhtaradii
ay ku jiraan culummadii awbi'ada ay ku takhasustay maaragtay cudurrada, culummadii ku takhasustay shaybaarka, culummadii ku takhasustay istaraatiijiyadda. 30 kooxood baa Maraykan laga sameeyey oo intaas oo 100 milyan oo lacaga meel loo dhigay oo la yidhi keena xal degdeg ah. waa la shaqaynayaa. maxaa la shaqaynayaa? ixtiwaa alazma, in azmada la xereeyo gacanta lagu dhigo. Canada saasaa ka socota. wadannada qaar waxay qaateen siyaasadday u bixiyeen siyaasatu tacaamul alxadir min almarad maca almarad, in lagula dhaqma siyaasad digtoon sida Swedishku ay qaateen. digtoon, dadka xorriyaddooda loo daayo, isla markaasina la mas'uuliyeeyo, isla markaasina dagaal lagula jiro, meeluhu ku badan yahay la ogaado. kooxaa la saaray, siyaasad baa la saaray. annagu maxaa samaynay? annaka siyaasaadka aan samaynay kooxda meel fadhido oo fikiraysa oo madaxa xafuujinaysa oo maaragtay anigu waan soo akhrinaya, waan soo fadhiisanaya, waa hadlayaa. sheekh kalaan hadlayo, walaalka saaxiibka sheekh giira waa hadlayaa. sheekh kalaa hadlayo, saaxiibka cabdixambaq waa hadlayaa. sheekh kalaa hadlayo maaragtay sheekh cusmaan dhal jabuuti waa hadlayaa. sheekh kalaa hadlayo, sheekh dirar waa hadlayaa. sheekh kalaa hadlayo waa hadlayaa. waxaa halkan kale ka hadlaya maaragtay dhakhtaradii, waxaa ka hadlaya injineeradii, waxaa ka hadlaya khuburadii. kulluna natakallamu, dhammaanteen waan hadlaynaa. laakiin mid inta uu yidhaahdo war mal camal, caqli baa laleeyahay meesha maaragtay. xataa kuwa isku fikirka ah isma weydiinayaan mal camal, maxaan qabanaa? mal camal, maxaan samaynaa? ma aha in la kritikeeyo un dowladaha, maaha mal camal. dowladduna iyadii baa wadaba, wasiiradii unbaa wada, laakiin ayna wixii cajaa'ib baa dhacday. marka dowladahani waxay dhigteen istaraatiijiyad maandhowta akhrisanaya, waxay dhigteen istaraatiijiyatu listiicaab. horta cudurkan inaan fahanno weeyaan. halkuu ka yimid, muxuu rabaa, halkuu gaari doonaa, wax kastiba in la istiicaabo. 2 siyaasatu istaraatiijiyat alimtisaas, inaan nuugno oon dib u soo celinno, cilmiga loo dejinaya. 3 siyaasatu tajmiid, inaan meel ku xidhno oon qabanno. 4 siyaasatu almuxaasara, inaan cunqabatin ku samayno isaga. kadibna ikhfaa, inaan nolosha ka saarno. waa la dejiyey, shaqadii baan wadaa. marka saasaa loo fikiraya caalamka. annagu see loo fikirana نحن المسلمين كيف نفكر؟ لدينا كتاب الله تبارك وتعالى. كتابك إلهي بان هيسنا، قرآنك بان هيسنا، قرآنك أن هيسنا، كتابك إلهي أن هيسنا سبحانه وتعالى. وحو إنو يهي منهجك أبا إنو سودجي تبارك وتعالى. قرآنك وحوين سوى لنا من قرآنك. waxaan halkan maanta inii soo bandhigayaa 2 fikradood oo quraanka aan ka soo dhex saarnay. fikradda koowaad waxa weeye ilaahay marka uu ka sheekeynayay kriis markuu dhacayo, wuxuu ka sheekeeyay kriisyada qaarkood inay khatar yihiin. muslimiinta isagoo la hadlayo, basharka la hadlayo, wuxuu ku yidhi wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuuci wa naqsin min alamwaali walanfusi wathamaraat وبشر الصابرين. إلهي هل كان وحا كجرا 7 arrimood oo u baahannahay inaan istul dhigno. 1 arinta koowaad ilaahay wuxuu yiri wa'da waa maxay. arinta labaad lam la wala. arinta saddexaad nuunka muxuu yahay wala nabluwannakum. waa 3 shay cajiib. wowga hore waxay culimadu yiraahdeen waa waawul qasam, ilaahay waa dhaaranaya. إلهي بعد هرنيا. لام كواحد هذان ولام الموطأة للقسم يسوون داربو يلا. إلهي بعد لبجر دارنيا. والله ثم والله إلهي بعد. صدق نونك واحد هذا ونونك أتكينتا لنبلون نونك وكاس. أوكي. إلهي مركو صدق هذا أريمتكو هالله. وحويلي خطاب كيبون أصول جديد. يقول الله يا كم تي أفراد أنكم الله يا بشر مسلمين تقول الله. اوكي إلهي محولي وانيغو اتحامي والله ثم والله او هوانيغو اتحامي او نيغو اتحامي iyo inika maxaa nagu اتحامي ilaahay wuxuu noo sheegay 5 shay oo waxa loo yaqaan shumuuliyatu al-azma. crisis-ku markuu yahay shaamil weeyaan, wuxuu nagu اتحامي bishay shaygu waa maxay ikhwaani fillah? shay kelmadda la dhahdo bishay ma huwa bishay wa nakira. ونكردنا وتعم وعام شيء عبسئة. وعنقول تخامي شيء هي عبسئة، خوف عبسي.
اوكي عبسلها كاي منسا عذر بك اي مكرتا ماشي waxay ka iman kartaa dagaal waxay ka iman kartaa suldaan daalim oo qaashima waxay ka iman kartaa isticmaar dibadda naga yimaada waxay ka iman kartaa gariir dhugu gariira waxay ka iman kartaa duufaan waxay ka iman kartaa maaragtay roob da oo istaagi waayo oo daadad keena bishay min al-khawf cabsiha cabsi wallabo waxaan ugu taxamil shay gaaja ah min al-juuci gaaja ah waa crisis xagga gaaja shay goofle tacum gaaja ballaaran iflaas baa laga cabsoonaya maanta dunidoo dhan baan ugu taxamil saddex waxaan ugu taxamil xoolaha oo yaraada shaygii waa laga yimid waa naqsin baan ugu taxamil naqsi inay naaqusanto maxaa naaqus biilaahu xoolaha naaqusmi xoolihii dadku haysteen yaa naaqusmi lacag maaha geel maaha ari maaha dahab maaha wax waloo la haystay biyaha waxay gaal u dhadaan wax walay bini aadanku haysteen oo dhan yaa naaqusmi oo maalka ka mid a waxaa naaqusmi al anfus buu ilaahay maxaa naaqusmi buu ilaahay nafaha bini aadankaa dhiman haddii bini waddan ay dad deganaayeen matalan 500,000 مليون ay deganaayeen 300,000 ba dhimanay shay naqsi baa dhici dadkii baa baabi'i ilaahay wuxuu yidhi wathamaraat baa baabi'i wixii soo biqlayay warshaduhu waxay soo saarayeen waa samaraat waxa ay soo saarayaan maaragtay gaaska dhulka waa samaraat waa mura istithmaar waa mura waa maka wixii soo baxay oo dhan waa xoolihii wixii dhalinay oo dhan yaa yaraani idan waxa marka ay dhacaan maxaa dhacay kaarisa dhacday إلهي مركب محولي تبارك وتعالى أرنتا محالة ياليا وبشر الصابرين صدح باجي المكان كو قول أقوه الرئيسة وحي سمينيان الهروب ويبحثانيان وقادوا بحثانيان قول الله بعد وحي سمينيان سياسة وحي قادانيان نعامة قرية وحي قلنيان مضحة وحي لي الله محاني الله قول الله صدح هذا وحي سمينيان الصبر مع المواجهة والصبريان وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وصبر يعني لكن صبر كبر إنه عدم العمل إلا شقين وحكر لي العمل مع الصبر والشقين بقدر المستطاع والصبر بقدر الطاقة أنت تذكري سودنا والصبر أوكي إخواني في الله أردت إنكو هايستا يعني إيماننا محو سميي كتابك إلهي سيئو نوبرو sidee baa looga hortagaa dhibaato wuxuu noo soo bandhigay nebiyadiisa ka mid a ilaahay calayhim salaam dhammaantood nebiga waa nebi yuusuf calayhi salaam masar waxaa ka dhacaysay azma crisis baa ka dhacayay crisiskii markuu ka dhacayay waxa weeyaan ninkii masar xukumayay boqorka ahaa ayaa arkay manaam ru'yo arkay manaam buu arkay iska hawaawiye manaam buu arkay markuu manaamkii arkay wuxuu u yeedhay dadkii wuxuu yidhi uftuunii fi amri war amarkaa baan arkay fatwo isiya ila taliya mal xal waxaan arkay 7 saacaad oo cunaysa oo baratay abaaraysan oo 7 saacaad burburan ridqaysan arkay maxaa waxaasi muxuu ka dhigay min ayn hada ayaa macna kara way isku yimaadeen aqooyahankii oo dhan waxay dhahdeen adqaasu ahlaam wama nahnu bita'wil al-ahlam bi'alimin وحنا وحاسي وأدقاس وأحلام واسكها وبدونه وشغل شيطاني أنا كنا ما معناه كرنا إلهي بالله ده هيدين مركز با لو شيء واحد ونبي أجر لباحة أو علمي كان كنت تخصصي أو لهذا نبي يوسف الصديق عليه السلام وحلو يلا وأنا قلنا أريتي شيء يوسف بالله يلا يوسف أيها الصديق نك يوسف وإيرنت شاقة يو إفتو مكيد أمر كيان وحابا أركي warkii markuu sheegay yuusuf wuxuu arkay warkaasi inuu ku jiro waxa la yiraahdo at-tanabbu bil mustaqbalka masar inay halis ku jirto oo maxaa dhacay in ay soo socoto 7 sano oo abaar ah oo dadku ay gaajoon doonaan sidee looga bixi 7 sano oo shaqo ah oo dadku ay u shaqeynayaan si qeyr caadi ah istiraatiijiyad budaji walidaalika culimada islaamku waxay dhahdaan markay arinta ka hadlayaan waa arin cajiiba waxay dhahdaan waxa ugu horeeyay aan ka baranayno nabi yuusuf calayhi salaam waxa weeyaan waa 9 arrimood oo cilmi ah oo maanta u baahan tahay Soomaalidu inay qaadato oo Djibouti qaataan oo Islaam ay qaataan kitaabka ilaahay ma aha kitaabu beelaha lagu akhriyo ma ikhwani fillah
أريدكم هذا وحوي علم التنبؤ بالأزمة يا علمي قال يلاحظوا يا علم التنبؤ بالأزمة إنا لغور كاني كرو لسي مارتي أطرسي كرو مستقبل كم محادة كريا وعلم علمي قال نبي وحنا بري مارتي يوسف عليه السلام مو أور النبي يوسف عليه السلام واحد دعي ما واحد دعي ست تفاصيل وشكي بالدقيق لماذا وشيء دونا marka la budda min hada ilm ilmiga maanta maxaa loo sameeyaa saddex meelood maraakis la yiraahdo maraakista al-bahs al-ilmi meelaha ilmiga lagu baaro labo maraakis al-bahs al-istiraatiiji meelaha istiraatiijiyada lagu baaro ilmiga ma shaqeeyaan saddex maraakista la yiraahdo maraakis ad-dirasat at-tanabbu'iyya waxa la odrasayo siday u dhici karaan inta meelood ay ka iman karaan iyo dirasada lagu sameeyaa ila budda min dalik marka nabi yusuf alayhi salam waxa kitaabka quraanka baraya in mustaqbalka laga warkeeno illa daawada ma waxa dhici karaya in isku dawiyaan waxa dhici karaya haday dhacdo waxa laga hortay karaya hadii laga hortago waxa hub loo haystaa in laga sheekeeyo arinta labaad ee ku jira nabi yusuf alayhi salam waxa weeye al-ilm nabi yusuf markii uu odaygani boqorkii uu ka yiri waxaan ka dhiganayaa nin aan la tashay astakhlisuhu li nafsi waxaan ku diibayaa innaka al-yawma ladayna makiinun amiin wuxuu ku yiri war aniga wax kale hay dhiibina dhulka ii dhiib lacagtu ay taalo badbaadada qaranku waxay ku jirtaa maanta in xoolaha ummadda la badbaadiyo hadday xooluhu badbaadaan dadku way badbaadayaan hadday xooluhu baaba'aan dadku way baaba'ayaan annaka aksiyan ku shaqeynaa dadkii masaakiinta ee wax loo ururiyay sida la sheegayo yaa wuxuu laga qaadinaa 300 500 laga qoraya iyagu waxba loo keenin marka isagu wuxuu yiri in ij'alni ala khaza'in al-ard lulka yidib maamulka lacagta yidib limaada alim ilmi baan leeyahay ilmi aqoon baan leeyahay marka waxaan aqaanaa ilmu al-istismar sidee xoolo loo sameeyaa ma aqaana ilmu al-muhasaba sidee loo xisaabiyaa ma aqaano labo ma aqaana ilmi al-muraqaba sidee xoolo loo ilaaliyaa ma aqaano waxaan aqaanaa sidaan sheegi doono ilmiga samaynta xoolaha muxuu yiri markaa wuxuu keenay saddex siyaasadood buu keenay markii sidoo loo hortay problemkii wuxuu keenay wuxuu u bixiyay siyaasatu da'ab wuxuu yiri shaqaya da'aban shaqaan caadi ahayn dadku marka maxay dhahdaa hadii jiraan waxay dhahdaa marka crisis laga hortagayo amba crisis amba catastrophe laga hortagayo waxa loo baahan yahay laba shay waxa loo baahan yahay in loo shaqeeyo si aan caadi ahayn in fikradahana loo keeno si aan caadi ahayn isagu markaa muxuu keenay da'aban in habeen aan la shaqeeyo ajiib Soomaa labo wuxuu keenay wuxuu u bixiyay al-idkhaar in wax la kaydiyo fadaruhu fi sumbulihi hagoynina meesha ku daayay ha kaydsamo si ay hadhow toona loo isticmaalo kayd hadii dawladdu lahayn waa lagu kala tagaa meesha siyaasadda wuxuu keenay tarshiidul istihlaak waxa la cunayo waa in laga cuno wax yar oona aad loo cuno sidii awal wax loo cunay in la yareeyo yuu keenay marka saddexdaas siyaasadood buu qaatay oo cilmigiisa ku tusaya inuu cilmi lahaa arinta saddexaad ee nabi yusuf uu ka faysan waxyaan al-amana dadka crisis-ka daweynaya amba crisis daweynaya crisis-ka amba crisis-ka daweynaya amba kaarisada ka sarafka amba azmada amba problemka amba mushkilada amba dhibaatada culus dadka daweynaya waa inay noqdaan dad ilaahay jecel dad nabiga jecel dad dadka jecel dad dalka jecel dad ilaahay ka cabsoonaya dad qaanuunka ixtiraamaya dad damiirkooda ka cabsoonaya dad qarqaraya oo sidii nabi maartay sidii Umar ibn Khattab oranaya gargari aw la taghargari waligaaba cabaad ilaa muslimiintu ay dhargaan waxba kuma siinayo qof naftiisa ku horeysiinaya dadkiisa amaanada waa in loo dhigo dadkaas qofka xoolaha loo dhigo waa inuu saano al-amana muxuu raka inni hafizun alim ilmigi muxuu ku daray hafiz أنا صدقت أريد أفراد وحلو بيا اختيار الأكفاء في المواجهة مركب عذر لقهر تغير كريس لقهر تغير وحلو دارتها دتك كهر تغير كوا أقل ما أصدق أريبالله كو فيشن وين اللي الله حرفت وين اللي صدق وين الضمير اللي دتكاسي الضمير له حرفت له إيو فيشن له
وإلا دورته مركا النبي موسى عليه السلام ما النبي يوسف قرتين odagii maartay boqorkii muxuu yiri astakhlisuhu li nafsi warkani ana u baahan ana wax u dhibanaya shaqadii buu u dhibtay arinta afaraad waxa loo baahan yahay planification qabla al muwajaha inta aan lagu hortagay mashkiladda in la diyaariyo planificationki aw qorshihi qorsho waa in la diyaaro waa in qorshe jiro maaha in la raado ciidanka maxaa u diyaarisay wallahi iminka say ku qabsato baa wax lagu hortagaa baa dhigay nin tuur leh soo saxda ma garan waaye sheekooyin baa iska xafisanaa dadku wadarina ciidan dhan oo dariiq la dhigaa baa la yidhi war maxaad u haysaa maxay ku kaadinayaano wallahi nin tuur wuxuu sameeyay iyakan isku daynay iyaga keeni doona halka okay waa arrin cajiib weeyaan marka planification ka way ciidanku maxay cunayaan hagee tagayaan soo xilaanayaan dadka aqaladooda si loogu geeyay statistic maxaa la hayaa xaafaduhu imsay ka kooban yihiin maxaa ururada xitaa ka shaqeyn jiray Djibouti wala baabi ururka albir la dhado waxa bariga marka la qaybinayo lacag marka la sameeyo laba shay baa sameyn jirnay marka wax la qaybinayo koow waxa jiray 5 magaalada gobolada kala maaha caasimadu waxay u qaybsaneen 5 gobol 5 gobol waxa jiray 5 seeliil amba 5 unug oo ka shaqeeya oo unug walba oo hayo inta ay baahiyadu kala yihiin loo kala baahi badan yahay ayaa la keeni jiray marka qof ka sii baahan yahay wax la siin jiray marka waxa loo baahan yahay in la hayo statistic تركوب واقعي او حقيقيه ان لا هيو يا لو باهيه اريتاس وا مهم اريتا كله النبي يوسف سلم محوها الى تخطيط كيبو دجي اللي سميني افر توصلوا شنو يتوصلوا دول مراجعه التخطيط بلانيفيكيشن كما لك استال ديب لو ايغيا ديبو فيرين ما هرغلي ما قلدمي النبي يوسف ابو سميني عليه السلام وكدب تغي اريتا كله اعداد الامه ومبدا نبو دياري النبي فما حسدتم تحسنون ومدى الله الله وحاد بيرتان وحاد أوروريسان شقد إياك لو ديبي ومدى بال لقد جزء من المشروع قيب كم إذا بروجكتي اللي هو ببادين ومدى وإن ومدى كم من نقطة ما هنا ومدى دوش اللي جاي مادون سابو سمي النبي صلى الله عليه وسلم الريتة تطبعات ومحي سيدات القيادة الناجح هجان نمو هجان كي وينا يهجان كان عملك والله هجان كي فيشنكا يهجان كي شقدة فيشنكي بو دجي بقر هو ديبي بقر كينا وحو كسو عشي شقدي إساقع مركا ووضا شقينا يعني وحاد هذا القيادة في حمل الرسالة أرنت أغضا بيسا ومحي تجنب تشدد الأزمة إني أزمة أتكاتي تتكو أتكاتو وإلا قد يرى أزمة دي واجرتها كريسس واجرها دواتي واجرتها لكن محا كان يعني دباتو سي بداتو إن مالها لسكوي مادا كان يا إنا وحا كان قاجدو أي بداتو بيا أن تخلق الأزمة أزمات إني أزمة أبورتو أزمات كري يا إيمانيا مركا إخواني في الله مركا محلو باهي هاي إنا فكرة النبي يوسف عليه السلام أن قاضنو هدان جوغنا جيبوتي هدان جوغنا صوماليا أنا والله الله حمر الله هذا التليفون دري والمحل سمينيا وحال هذا سومالي لان وحال هذا بونتلان وحال هذا ريد ردبي وحال هذا ريد جيجا وحال هذا محنكو هذا مارتي كينيا وحال هذا جيبوتي يدو مالك اسمه وركيغا هليا والله هذا يا وحال محل سمينيا waxyaalo lagu qosla ay soo sheegaya taswiiro la soo diraya ergagax bay galaya marka waxaan leeyahay waxaan u baahanahay maanta qiyaado hoggaan afar arrimood leh hoggaan afar arrimood leh kow xikmad leh war xikmad baan u baahanahay maanta ma aha u baahanahay cantariyad oo dawlad baan hayo waxaan doonaas maaha xikmad wa kow وإذ قال لقمان لابنه لقمان الحكيم بالوبحي حلبو كان يا قفك حكيمكي سوريشكو كان لبا waxaan u baahanahay qiyaado ru'ya la vision leh saddex waxaan u baahanahay qiyaado ka faa'iideysata energy-ga ummadoo dhan ta afraad ugu muhiimsan waxaan u baahanahay qiyaado geesiya shujaac qaraarkaad qaadatid ku soco ha ka noqonin dadkan ka cabsoonaya iyo dadku maartay masaajidda laga micin karaya iyo waruuxaasi waa fitna ya ikhwani fillah shajaacad baa loo baahay culimo shajaacada loo baahay fatwada la shajaacada shicibka maaha wax laga cabsoonayo fatwada sheekh مساجدك dadkii waxa laga leeyahay salaamina dadkii adana iskiga bana gacanta uga saaraya mid kale ka daba saaraya ya ikhwani fillah mushkiladan Soomaaliya quraata adduunka ay ku khilaafsatay waa in xal loo keeno waa in xal la keeno la nakhafu illa Allah ilaahi waa in ka cabsoono ay dad baa jira madaxda ka cabsooda iyo qaar waxa jira shicibka ka cabsooda waxaana ka xunku waxa ka cabsooda kuwa shicibka ka cabsooda shicibka niciyo waxaan u sheegnaa la markii shalay toolaan ka hadlaynay masaajidda la xidhan lahaa waxay culimada Kenya waxay leedahay waa qalad waxa cabsi sheegay
markii dowladdu hal xidha tirina haddaba la xidhay alxamdulillah maxaa sabay waxaa sugaysaa waxaa sugaysaa adduunka ka horreeya aaway cilmigii uu keenay imaamu alxaramayn oo ahaa inay culummadu ka horreeyaan dadka inay culummadu ka horreeyaan madaxda inay culummadu fishinkoogu ka horreeya dadka kaleeto hada huwa alasl walidaalika ayuha alikhwa kitaabkeenna qur-aanka ha shaqaysiino kitaabkeenna qur-aanka rafkaan ka soo qaadno rafkuu dhex yaallaa kitaabkeenna qur-aanka hananu akhrinu bis barako wahada kitaabun anzalnaahu mubaarakun waa kitaab maxaa loo barakeeyey liyadabbaruu aayaati in aayaadkiisa aan firfirno waliyatadakara ulul albaab dadka caqligalana ay wax kala soo baxaan solution ay kala soo baxaan waa kitaabka maanta caalamku u baahan yahay maaragtay sheekh la yidhaahdo maxamed mukhtaar ashanqiiti xafidahullah kitaabkan markuu qoray alazma adusturiya fi alxadaara alislaamiya muqadimadiisa wuxuu ku qoray kitaabkan waxaa u baahan muslimiintu si ay uga baxaan azmada haysata laba waxaa u baahan buu yihi xadaaradda bini aadanka si ay uga baxda azmada haysata ilan xadaarada alcaalamiga azmadteedna ka weyn baa haysatee waa in annagu usoo bandhignaa waxay kaga baxayeen wuxuu yihi muslimiintuna waa inay horta ka baxaan azmadan markay ka baxaan bini aadanka kale usoo bandhigayaan si azmada uga bixi lahaayeen wallahu tacaala calaa waclam wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wajazakum allahu khayran